إلهي بقى محله maanta inoo suurto geliyey Somaliland inay qabsato doorasho isku sidkan oo culayskeeda leh oo cadawguna sida ay u dhacday iyo nabadgelyada ku dhacday oo ka naxay wixii Somaliland jeclaan ay ku farxeen ugu horeyn waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa shacbiga Somaliland codbixiyaashooda rooliya caruurba doorasho si wacan loo campaign gareeyay oo nabad leh oo nin waliba wixii uu dadka ku soo jiidanay oo ku hadlay soo doono soo xora oo la faragelinin inay noo qabsoontay aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan u mahadnaqayaa codbixiyaashii nabadda ku codbixiyey ciidamadii ilaalinayay guddigii doorashooyinka hawshaa waday axsaabtii iyo ururadii tartamayey oo si bisil u tartamayey waana sharaf ay soo hoysay Somaliland kuna dhismaayay qaranka Somaliland waa dhismihii qaranka Somaliland kor loo sii qaaday taa waa mahadnaq shacbiga oo dhan ah iyo Somaliland oo dhan qodobka labaad aan ka hadlayo waxa weeye taageerayaasha iyo xisbiga kulmiye oo doorashadii maanta aan ku guuleysanin oo laga yaabo in badani haddii natiijadii aanay soo iyagu ku badsan inay shalayba iyagu guuleystaan shacbigu u codeeyey oo daraadda shacbigu u codeeyey oo ay intaa dalka maamulayeen waxay ahayd in aanu sii wadno maamulka dalka oo mar saddexaadna layna sii doorto maanta haddii lagii doorashadii waa laydka horeeya kama cadhoon karaan kama xanaaqi karaan dhowr sababood awgood waa marka koobaade shacbigu shalay iyo daraadba codkooda waa siiyey waa ku ixtiraam waa ku mahadsan yihiin maanta hadday cid kale yidhaha waanu hormaraynaa oo codkoodii siiyeen dee waa dimuqraadiyadda iyo wixii loo qaatay waana taynu doorashada ku gallay waxaanu doorashada ku gallay waxay ahayd in doorashadaas ay dhisto qaranka Somaliland may ahayn in qof dhisiso may ahayn xisbi gaar ah in lagu dhisayo marka doorashadii sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneed ayaa la soo qaatay waxaana noqotay mid dhisaysa Somaliland mid isu keenaysa mid xuturaan dhexda ka saaraysa waa inay noqotaa taasaad ku aqbalaysaan oo ahayd ujeedada koobaad aynu doorashada u galay kumaynaan gelin mar walba in inaga layna doorto waana dastuurkeena ku qoran in shacabku maalintaa uu cod ka leeyahay kolba ciddii dalka uu codeeyo sidaa daraaddeed waxaa kale oo iyada ku jirta qodobka aynu ka ogolaanayno wixii natiijada soo baxay waxa weeye in badan ayaan anigoo murashaxa oo madaxweynihii dalka ah oo xilka intaa leeg haya ka ballan qaaday maalin walba hadlaba in aan aqbalayo natiijada soo baxaysa aniga iyo xisbigayga iyo intay codeysay ballan aynu qaadanahay oo in badan ummadda u sheegnay waa ballan weyn te ballantan qaadana ka baxayno shacbigeena u sheegnay maynaan odhan oo kumay jirin haddii aan dooran waado oo codkan sii waado waanu cadhoonayna iyo waanu xanaaqayna kumay jirin dhalinyarada waxaan u sheegayaa doorashadaanu galay waxay la mid tahay kubadda ciyaarayay tiim kubadda ciyaarayay laba tiim kubadda ciyaarayay tiim waliba uu jecel yahay inuu goolasho dhalin badiyo haddii laga badiyo qolada ciyaaraysay ayarun bay ka dareeraan colaadna la isugu qaado sidaa daraaddeed taageerayaasha kulmiye oo laga yaabo inay wax badan oo ay xusanayaan waxyaalihii la iska lahaa doorashada iyo nin caqli xumo wuxuu yidhaahdo iyo qaar ilaa imika wax wada wadayo
waynu ka bislahay inagu waynu ka bislahay sidaa daraaddeed kuwa la doortayna waa kuwii aanu isnaqaanay uun waa kuweeni uun waa Somaliland dariska ta saddexaad aynu u aqbalaynaa waxaa ka mid tahay doorashooyin badan baynu soo marray natiijada markay timaado kuwii la aqbalay waynu ku guulaysanay dalkaa ku dhismay horumar baynu ku gaadhnay kuwii la isku diiday khilaaf ka yimidna dib u dhac iyo khasaare ayaa inaga gaadhay sidaa daraaddeed haddaynu kulmiyo nahay iyo intii codaysay ee ku soo biirtay iyo intii ka qayb gashay taageeradeeda iyo xisbigaba waxaa ku waajiba oo aan leeyahay waxa inagu waajiba inuu gallay ballantaa dadka iyo shacbiga iyo qarankaba inaanu aqbalno natiijada waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu aqbalay natiijadii doorashada ka soo baxday oo uu ku guulaystay xisbiga wadani ayaan halkan ka caddaynaya shacbiga u sheegaya oo sharcina tahay sharaftuna tahay qaran dhisuna yahay ma aha maalin aynu murmayno oo isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo waa maalin aynu wada guulaysanay oo qarankeena kor u dhisnay oo horumar ka soo ahayn in badan haddaynu kulmiye nahay haddana ka ahaanayno ummadda waxaan u ballan qaadanaa xisbiga kulmiye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambalyeynayno madaxweynaha cusub la doortay cabdiraxmaan waa hambalyeynayna xisbigaana waa u hambalyeynaa guusha ay gaareen qarankana waanu wada dhisaynaa kaalinteedii hormoodkeedna waa ka ahaanayna dhalinyarada ka xanaf qaadanaysa wax social mediaha ka jira iyo dadka caadifadooda kacsan tahayna waxaan leeyahay hala dego haddaad doonayso qarankaaga aad dhisto aqbal natiijada wax ka dhis qarankaaga waxaad qofkayga sayaanadu cadhoon waana dib u dhici qodobka saddexaad waxa weeye qaranka Somaliland maanta guul buu joogaa sidaa aad u codayseen nabadda ay qaran ku dhisaan madaxweynaha la doortay xilka loo dhiibay xil culus baa fuulaya ee la shaqeeya dulqaad badan hal la muujiyo qarannimada hal la dhowro waxa dhalinyarada iyo miidiyaha ka socday nin caqli xun wuxuu deemida ciidan wax ka hadlayaan ayaan la qaadanin waxaan leeyahay Somaliland baa guulaysatay kulmiye horumar buu ka ahaa haddana waa ka ahaanaya Somaliland waxay noo ballana qaran iska Somaliland aqoonsigeeda oo aynu u wada guntano hadba ninkaa yimid ee la keeno ee maalinta la doortana in la iska taago hawl badan baa u taala oo u baahan yahay in lala dhiso si aynu guul u gaadhno aad iyo aad baa mahadsantihiin dhammaantiin waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu